السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا دعونا إنسان سومالي ستار تي في ساعة أفضل قلبنا مالنتو إسنينا برنامج كمان تو لايف دايركت سندين برنامج كغير بدن أيو سوجرا سومالي ستار تي في. هاي أو ويلكمنا بورن ستوديو أبنا كنال ويسندر موندا كل كان 6 إلى كل كان 4 هوس أبنا كنال ستوكهولم لوكال تي في مدبوري بلاسن أيام فدينا برنامج كغير بدن أيو سوجرا سواريدن كوجشاقي مانتو أو سبتي waxaa halkan noogu marti ah nin qoraa weyn ah oo ka yimi Argos iyo London oo Soomaaliyeed oo nin martiana la joogo studio oo qoraa Soomaaliyeed ah marka buug uu qoray iyo goortu qoraalka bilaabay saadin balan qaaday ayaa maartay inaad ka faa'iideysataan qaybta dambana barnaamijka waxa telefoonka idin furi doonaa marka ku soo dhaw Mr. Saciid waa mahadsantahay walaal studio waa mahadsantahay marka hore dadka isku barsataaray maadaama ay tahay markaadii hore ستوكهولم اي تي في كبسمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكفر حسنها إن جوجو تي في سومالي ستار تي في مقالة ستوكهولم مقعي هو سعيد على الشراء وحن دقنا انتي مدة ودنك نروي هذا وحن دقنا يو كي انجليز مقالة ليستا وحكبرتي ودنك نروي يا ودنك انجليز شني طبعا كي سنة قدام بيسي وحن كسر شقي شركات كاللطلية قناعستها نروي وحن كشقية كونسلتين مانجمنت كونسلتين وحن كسر شقية ستوك اكستنشيجر نروي أوسلو بوش يو كي وحن كنقضي معلم جامعة وحن نقضي علمي باري مدة قدام سنة وحن لتلينا يدتك صومالي ده هي أجنبي قد ما نتود مركي أن دريمي باهيدا اللو قبو إن دتكو أي وحكو فهمان لو قدود هوي أيان قريبوغان قريتيس وحي وقعتي وقت دير أي وقعتي وإلا إيو لو سنة waxaa keenayna waxay ahayd xanuun aan dareemay in baahi dadka Soomaaliyeed u qabaan inay yaani ku bartaan ganacsiga luqadooda hooyo ganacsigu waa xirfad ganacsigu waa cilmi ganacsigu waa mustaqbal maaha wax qofku uu isku miinayn karo maaha wax madax isugu tuuri karo marka buugu wuxuu buug ku haboon dadka raba hadda inay ganacsiga bilaabaan iyo dadka ganacsiga ku jira labadaba qofka raba hadda inuu bilaabo ganacsiga buugu wuxuu noqonayaa daliil ama tuse wuxuu tusayaa wadooyinka lagu guuleysto wuxuu uga digayaa wadooyinka lagu khasaaro wuxuu soo qaadanayaa tusaalooyin fara badan dadka hadda ku jira ganacsiga oo raba inay wax ka bedelaan jihada ay u socdaan ama xawligay ku soconayaan oo raba in ganacsigooda kobco horumar sameeyo iyagana wuxuu tusayaa sidii ay ganacsigooda ku horumarin lahaayeen wuxuu sidoo kale buugu ku haboon yahay qof kasta oo daneynaya inuu wax ka qayb qaato horumarinta mujtamaca Soomaalida ama ha noqdeen dadkeena u shaqeeya media ama ha noqdeen dadkan macallimiinta ama ha noqdeen dadka mujtamaca la shaqeeya oo buugu wuxuu tusayaa qaabka ganacsiga loo horumariyo aad marka buugan kii kugu horeeyaa hadda Soomaali laakiin waxaan rajeynayaa inuusan noqon doonin kii ugu dambeeyay markii aan cilmi baarista ku jiray waa jirtaa inaan publish gareeyay paper badan oo English iyo cilmi baaris badan aan ka qayb qaatay laakiin buug Soomaali aan ku qoray kana u horeeyay hadda waxaan ku mashquulsanahay iyadana laba buug oo kale oo aan rajeynayo sanadka dambe hadda inaan soo bandhigi doono haduu Ilaahay raad marka hadda waxa ku sugan tahay Soomaha Oslo ما هذا واحد دقنا إنجليزك هذا وريكتي مركز كورن حق خيلنا تكون حي إسكندنافيان كيو إنجليزك من عن بزنسك فرق جوجو أنا أقول حي وحويان إنجليزك صومالي مرتكو معها وحيد دقنا وقت دير إلا بقلال سنة لبا وودن وحكو علين كرا كلي عادي قربتان كاجا meeshaan laftigeeda fursad aan yareen baa taala oo dadku ka faa'iideysan karaan laakiin waxa moodaa fursadu inay xoogaa badan tahay waa psychological laga yaabay fursadu inay siman tahay laakiin maadaama Ingiriiska ay ku badan yihiin ajnabiga ayna ku badan yihiin dad ajnabi oo meel fiican ka gaaray nolosha ama ha noqoto ganacsiga ama ha noqoto siyaasadda ama ha noqoto maamulka ama ha noqoto akademiga meel kasta arkasta dad ajnabi ah qofku wuxuu dareemayaa isna inuu gaari karo meesha Scandinavianka dadkii madooba ee muslimka inaga ugu horeeyay walina waa yar yihiin dad Soomaaliya oo ama successful business ama siyaasadda galay ama civil servant oo dawladda u shaqeeya marka qofka waxa ka haraya cabsidaas iyo dareenkaas ah inuu yahay ajnabi ama markay noqoto dhinaca fursadda iyo opportunity-ga hadaysan Sweden ka fursad iyo chance badnayn Ingiriiska waa la mid
ومعناها وسيم وسيم تنبا waxaan leeyahay baa chance fiican markay noqoto dhinaca ganacsiga halkan dadku waa ka inkan badan yahay marka loo fiiriyo xagga tartanku waa ka yar yahay marka loo fiiriyo xagga yani halkan waxay leedahay fursado badan laakiin qof kasta kama faa'iideysan karo fursadaas waxa ka faa'iideysan kara oo kaliya qofka xirfad leh ayaa ka faa'iideysan kara Saciidow dhowr goor baan barnaamijka ganacsiga halka ka soo siideynay ku saabsan dhinaca ganacsiga iyo sida start aidka iyo waxaan sidii loo bilaabay marka buugaan hadda adig qortay ma macnaheedu kulli package ma soo koobaya arrimahaas oo dhan habka loo bilaabi karo qof walba intuu lacag haysto qof waxa jira lacag maaratay hadda daawanaya jiro oo isdhahay 10,000 wax kuma bilaabi kartid waa yar tahay maaratay ama maaratay ku qasaartaa ama asaas marka ka waran macnaha buugaan sidiisa buugaan wuxuu kaga duwan yahay buugta kale ee ganacsiga waxa saldhig ah cilmi baaris aan ku sameeyay ganacsiga Soomaalida markii aan dareemay baahida loo qabo hawshan waa safray waxaan tagay wadamada Yurub oo dhan waqooyiga Mareykanka meel badan oo galbeedka waxaan tagay Afrika Carabaha meelaha ganacsiga Soomaalida ku horumarsan yahay iyo meelaha ku horumarsanayn 750 shirkadood oo Soomaaliya baan macluumaad ka soo ururiyay si aan u ogaado lacagta wax ku bilaabaan qaabkay ku xushaan fikradda ganacsiga dhibaatooyinka la kulmaan suuqyada ay galaan ganacsiyada kobca kuwan kobcin kuwa mustaqbalka leh kuwan mustaqbalka lahayn waxaan soo wareystay dad faraha ka badan oo ah ganacsato Soomaaliyeed oo meel fiican ganacsi ka gaaray marka buug wuxuu soo ururiyay nuxurkii dadkaas aan la soo kulmay ayuu soo ururiyay marka dadka badan Soomaalidu su'aasha horeysay ku weydiinay waa mid hadda weydiinayso lacag ma haysto laakiin ganacsiga waxa ugu horeeya ma lacag ee waa fikrad ganacsi heshid dadka Soomaalida hadda qofku wuxuu isleeyahay hadaad lacag heshid hebel bakhayd buu furtay hebel internet buu furtay hebel dukaan buu furtay waa furan kartaa laakiin ganacsiga waxa ugu muhiimsan waa in heshid fikrad hadaad fikrad heshid lacagtu waa imaanaysaa marka buugu tusaalahan wuxuu kaga duwan yahay buugta kale maadaama aan ogahay mid kamid ah dhibaatooyinka haysta Soomaaliya markaan joognay ganacsigu waxa wax la kala dhaxlo wuxuu ahaa xoogsi qof kasta isku day karo laakiin adduunkeenu joogno يعني ganacsigii oo ku socday xooga waa dhamaaday waxa lagu jira age-kii aqoonta ayaa lagu jira marka ganacsiga qof galay waa noqdo ganacsi cilmi ku saleysan ganacsi oo daraasad ku sameeyay ganacsi suuqeeda uu hubiyay marka buugu tusaalahan waxa jira cutub dhan oo ka sheekeynaya sidee lagu helaa fikrad ganacsi waxa jira aalado ama toolal dadku isticmaali karaan oo intay suuqa isha ku mariyaan ay arki karaan meesha fursad ku jirto marka qofku arko fursadii kadib wuxuu awoodi karaa inuu horumariyo fursadii oo miisaamo oo arko inay mustaqbal leedahay in kale kadib wuxuu ka sheekeynayaa qaabka fursadii marka aad u bilaabi lahayd shirkad ugu bedel lahayd marka lacagtu muhiimaha waxa ka muhiimsan fikradda dabcan marka fikir fiican u heshid waxa muhiim adiga xirfadaadu waa muhiim arinta kale muhiimka waan jeclahay dadka inaan xusuusiyo oo dadkeena hadda ku yar waa ambitionka dadkeena waxay noqday dad hankoodu yar yahay qofkii aqoonta lahaa kii way aragnimada fiican lahaa kii muddo badan ganacsiga ku soo jiray wuxuu ka fikirayaa iyo qofka aan wax aqoon lahayn wax xirfad lahayn markay noqoto dhinaca ganacsiga wax isku mid ay ka fikirayaan asbaabtuna ambitionkii baa hoos u dhacday asbaabta keenta ambitionkii inuu hoos u dhaco waa kalsoonida baa inuu ku yaraatay waxa keenay kalsoonida inuu ku yaraatana waa nidaamka cayrta benefitka marka waxaan jeclahay dadku inay ambitionkooda sare u qaadaan ay ka fikiraan wax fiican dadkeenu waxay leeyihiin quality haddii ay ka faa'iideystaan muddo yar ayay ka dhex muuqan karaan mujtamaca Swedishka dadkeenu culays kuma aha Sweden waa resource waa khayraad laga faa'iideysan karo laakiin waxay u baahan yihiin in la support gareeyo waxay u baahan yihiin inay helaan talooyin ku haboon waxay u baahan yihiin biyo sacbadaada laga dhigo tusaale 750 ka shirkadood aan la kulmay wax ka yar 3% 3% ayaa awood u leh inay buuq ganacsiga ku akhristaan luqadaha Soomaali ama Carabi joogo ama Yurub joogo qofka awoodda wala intuu tago library Swedish inuu buug Swedish oo ka hadlaya ganacsi soo qaato waa yiriin waa inta jaamacadaha gashay ama dugsiyada sare ka baxday oo luqad ku filan taqaana marka dadku way helaan literature ku qoran luqadooda hooyo way helaan dad oo seminaaro iyo workshop ku siiya luqadooda hooyo way helaan dad la taliya oo kala taliya ganacsiga luqadooda hooyo marka wax walba laakiin waxay kaga faa'iideysan karaan buugan ku qoran yihiin oo hadda ka dhawaajisay saan sheegay buugu wuxuu ku haboon yahay dadka raba inay hadda bilaabaan ganacsiga oo xutsaalahan ka bilaabaya sidee lagu helaa fikrad ganacsi sidee lagu miisaamaa sidee loo sameeyaa cilmi baaris sidee loo qoraa qorshe ganacsi dhinaca kale dadka ku jira ganacsiga wuxuu tusinayaa sidee loo kobciyaa ganacsiga tusaalahan fashilka ku yimaada ganacsiga maxaa keena sidee looga badbaadaa haddii fashil yimaado maxaa la sameyn karaa sidee loo kobciyaa ganacsiga maxaa keena ganacsiyada inay qaarna kobcaan qaarna kobci waayaan waxa jira oo kale buugu ka hadlaya waxyaabo ganacsatada Soomaalida hadda ku liitaan
waxaa kamid ah maamulka tusaalahan waxaa kamid ah suuqgeynta waxaa kamid ah fikirka istiraatiijiga waxaa kamid ah tartanka waxaa kamid ah sidii ku heli lahaayeen maalgelin xalaal ah iyo sidii ku maamuli lahaayeen marka qaybta dambena waxay si fiican u kala dhigdhigaysaa waxyaabaha oo ay cilmi baaristu muujisay in ganacsatada Soomaaliyeed hadda ku liitaan waxyaalahaas xal u raadinaysa marka adiga Saciid ahaan ma la kulantay shirkadaha hadda ka jira especially in Europe oo businesski waxa ku jira ma qabatay macnaha si uga faa'iideystaan ma ka faa'iideysteen ma kulanteen horta buuga wuxuu hadda aan daabacay July marka hadda wuxuu jiraa cimrigiisu waa 2 bilood 3 bilood meelahaas weeyaan falilah alxamdu qayladu ma yareyn waayo aniga objective-kaygu buuga aan u qoray maaha in aan lacag ka sameeyo objective-kaygu waa in laga qayb qaato sidii loo horumarin lahaa mujtamacaan in laga qayb qaato weyn waan tagay meelo badan oo Norway kale waa tagay Sweden waa tagay Ethiopia meelo kale waa tagay Denmark waa tagay Belgium waa tagay UK dhowr meelood kamid ah waa tagay hadda inaan Mareykanka ugu gudbaa laga yaabaa yes meel kastaan tago waxaan bixinayaa seminaaro lacag la'aan waxaan bixinayaa la talin lacag la'aan haddana waxaan u sheegayaa dadka daawanaya haddii ilaahay maanta iyo berri waa jooga arbacada galinka damaan baxaya qofkii isla waxbu ka caawin karaa insha Allah soo xiriir doonaa waa helaya diyaar baan telefoonkan hadda waa u furi doonaa marka barnaamijka laba qayb hadda ka kala dhigeynaa qayb kale hadda ku soo laaban doonaa telefoonkan dadku waa ka faa'iideysan doonaan oo ku soo wici doonaan oo wixii su'aalo ah oo ku saabsan buugan iyo dhinaca ganacsiga iyo dadka raba inay ka faa'iideystaan oo si ay ku bilaabi lahaayeen ganacsiga marka Saciid waa u soo laaban doonaa qaybta labaad barnaamijka hadda waxaan u galeynaa in slogan idin tusaya waa idin soo laaban doonaa telefoonkan waa idin furi doonaa barnaamijka oo live maanta ka soo baxay Madbur Balaasan